بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan inta ka salaamiyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. waa walaashiin Faysi Cabdirashiid Cabdi Cusmaan Faysi wadani. walaalayaal horta dhibaatada way iska badan tahay. Ilaahay hanaga dul qaado. inta xanuunsan Allah ha caafiyo. inta maaragtay wax ahna Allah yani waxay rabaan Allah u fududeeyo. shalay aniga waxaad yani aad igu talinayseen in dawladda Soomaaliya ay gacanta igu hayso. وارن دولة الصومالية يعني قعنت وحي يقول سامانت وحن جوجا دلك كينيا هدان ماركت وح أبا هذا أو لن أيجا عاويان بنت وشيء حارنا ومحسن يورت ولا لك إيجا إن سيهايا سفارة أهنا قنصل جود سفارة الصومالية إن على بجدي رنتي ما أنت وح أبا هنا هو يسيا إيجا ما هكرادو لكن هل كدي وهيستوي حتى دولة الصومالية ما أنت وح كسوجاي in maarta 4 bilood aan maanta Nairobi jooga inay ii dhameyn karto xaaladeeda laakiin ma aysan dhicin. saaka waxa afcad la igu dhahay dawladda Soomaaliya Fayso way u diiday dawladda Jarmalka inay ku qaabisho. okay way diidi kartaa dawladda Jarmalka laakiin hadii aniga aan procedure soo dhahay waa kana uu ii soo dhamaad wiil Faysal Qartaal dhahayo qeyr Allah siiyo wiilkaas ay soo dhameeyaan ku iri wixii qarashada miga awoodi karteen. waxaa la igu dhahay dawladda Soomaaliya waa lagu noqonayaa Fayso wixii ku awoodana waa aad helaysaa. dawladda Soomaaliya aniga xushmada u haya wanaagan u haya. madaxweynaha waa madaxweyneyga, ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaarahayga, dhammaan dawladda oo dhan waa dawladeyda. fartaada xunaa la filqkaaga ma harto. meel maanta aniga dawladeyda aan uga taga ma joogi meel ayadana iiga tagta ma jooga laakiin bino aadanimada ma ahan maaragtay in qof muddo intaas daba taagina aad tiraahdid wixii ay rabtay ama qofkaas uu ku caafimaad lahaa ilaaha caafimaadka hay ma hayno. wuxuu la ii sheegay saaki in la dhahay in safaaradda Jarmalka way diiday Fayso oo maaragtay laakiin dawladaha Yurubiyaanka aan waxaan kaaga raadinaynaa barseed hadda cusub. walaalayaal ani waxaan ku yiri waa haystaa barseedkii waa kana dhaqtar soo aqbal waa kana arka warqadeeda dawladda Soomaaliya inay laga hadlaan rabaa. kolay aniga hada walaalayaal idinka dhashay idinka walaalahay idinka dadkayga idinka ehelkayga idinka maartay Soomaali Maxamed ah qof kale maanta caawinay ma haysta aniga waalid caawinay yani waa family lacag leh oo caawinay ma qabi qof kasta maaragtay siyaasiga dawladdaas ku jirana maanta hadii qof aniga aan ka taba lahay I know in wax badan la qaban lahay laakiin kamalihi walaalayaal idinka walaashin ahay maanta markii oo la dhaho Mareykanka waxa imaanayo xildhibaan hebel howlaha loo qabto shir ha loo qabto dumarka Soomaaliyeed way u istaagaan laakiin walaashin oo maaragtay u baahan dib aniga been idin sheegi ma waxna idinka qarimaayo kaadiyasta bura iga soo baxday buradii waxa ugu dhahay dhakhtarka hadii xaaladan ku sii jirto kansar isku sii bedeli karta ama tiibeeda lafaha yani waxaana keenay igu dhahayn kateetarka oo kugu jiro. marka walaalayaal walaashin ahay Soomaalida qof ka naxariis badan adduunka ma jiraan qof bini aadan ka naxariis badan ma jiraan. maadaama lidha kaadeystaadii ama kansar isku bedelay ama TB dalfaha dhacankaasi TB dalfa u gudbaya ma garanayo waxa sheegay inta dawladda raadi kara waraadi inta daba socon kara waa daba socday wax kale oo iraada ma qaan walaalayaal idinka walaalahay dawladda ay ugu haleynayna dawladii aan rajada ka sugay waxay igu jawaabtay safaaradda Jarmalka oo ku soo rejectiye ku soo siisay dawladda Jarmalka kuma qaabili karto dawladahan kale Yurubiyaanka ugu raadina qof dhan oo noloshiisa oo maaragtay mustaqbalkiisa ay tinkiisa ee banooni amal uu kaftamayaan uguna dheelayaan laakiin waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xisaabtankaas oo iimaanaya insha Allah maanta ahayn uu iimaanaya